jeelka kooban dhowr dabaq cuntada wax kaliya loo ogol yahay in la cuno 2 daqiiqo kaliya 2 daqiiqo kadibna dabaqa ka hooseeya ayuu ku degay horiinka hurdada ayuu ka soo kacaya wuxuu arkayaa inuu ku jiro jeel lambarkiisu yahay 48 ku yaala sariir iyo suuli kaliya bartamahana waxa ku yaala god aad iyo aad u dheer kaligi kuma qolka waxa la jooga oday magaciisa la dhaho Tirimagaas badan oo sidooda oo kala ayaa jira loo siiyay sida ay u kala sareeyaan dabaqyadu kastoo jeelka kamidana waxa ku jira 2 maxbuus soo degaya miis cunno badan ka buuxdo waxay haystaan 2 daqiiqo inta ay cuntada u degin qolka ka hooseeya sinaa dadka waxay ku qasbaysaa inay degdeg u cunaan intay ka gaadhaan markasta oo dabaqa ka sii hooseeya ku jirto waa markasta fursad aad u yaraanayso inaad cunto hesho bil kasta markay dhamaato maxaabiista qolalka ayaa loo kala bedelayay Joring markii koowaad uu miiska cuntada arkay waxa ka muuqanin sababtoo ah ma gaajoonayo Joring wuxuu cuntada u diinay dadka ka hooseeya laakiin saaxiibkii Tirimagaas si aan nabcaadeen ayuu Tirimagaas markuu dhameeyayna candhuuf ayuu ku tufay cuntada wuxuuna ku dhahayaa Joring kuwa naga koreeyay sidaas ayay sameynayaan Joring wuxuu go'aansaday inuu tufaax miiska ka qaato si uu u cuno hadhow sidaas uu miiskii qolkooda uga dego qolkoodu kululaanay waxaan ogaanaynaa in loo ogoleen maxaabiistu inay cunto dhigtaan Joring wuxuu ku qasbanaanayaa inuu tufaax tuuro haddii kale wuxuu u dhimanayaa kuleylka zaidka wuxuu soo xasuusanayaa kulankii uu sameeyay intuu jeelka wali soo gelin waxa kale uu soo xasuusanayaa inuu saxaxay waraaqad ku qasbaysa inuu jeelka ka bixin ilaa intay muddadiisu ka gaadhayso ogaanaynaa inuu Joring aqbalay inuu ku qaato jeelkan 6 bilood markuu waqtiga dhamaystana wuxuu qaadanayaa shahaado diblooma ah qof kastoo maxaabiista kamid ah waxa loo ogol yahay inuu qaato hal shay Joring wuxuu doortay inuu qaato buug sheekooyin labaadna Joring waxa ka muuqanin miiska laakiin saaxiibkii Tirimagaas si caadadeed ayuu u cunay si degdeg ah wuxuu weydiinayaa Tirimagaas qisadiisa iyo suu soo galay goobtan Tirimagaas wuxuu ku dhahayaa maalin asagoo TV-ga daawanaya ku arkaya xaysiiska mindi cajabisay uuna iibsanaya intii labaadna xaysiiskii laftigiisii ayaa xaysiiyay mindi ka Tirimagaas ayaa xanaaqay intuu TV-gii qaaday ayuu daaqada ka tuuray xumadiisa TV-gii qof hoos maray ayuu madaxa kaga dhacay kadib Tirimagaas ayaa la kala doorasiiyay in la geeyo dhakhtarka dadka walwaalan ama in la geeyo goobtan uu hadda ku jiro Tirimagaas wuxuu doortay goobtan uu hadda ku jiro Tirimagaas wuxuu ku dhahayaa Joring qolkii ugu hooseeyay galay wuxuu ahaa qolka 132 ku dhahayaa qolal inta ka badan ayaa jira korka ayaan ka soo arkayay waxa kale uu ku dhahayaa qolalka hoose cunto ma gaadho bishan meesha joogayna waxay ahayd bishii iigu xumayd intaan jeelka ku jiro markuu maqlay hadalka Tirimagaas wuxuu ka cabsanaa in la geeyo dabaqyada hoose bilaabay inuu ku qaliyo dabaqyada ka hooseeya ay ugu xisaabtamaa cuntada dadka ka hooseeya laakiin qofna uu jawaabi waayay godkii ayuu dhinaca ka istaagay wuxuuna bilaabay inuu ku kaajo miiskii cuntada wuxuuna ku dhahayaa Joring shaygii uu doortay inuu qaato waa mindidii uu soo iibsaday intii labaad Joring asagoo cunto ka cunaya miiska nin dabaqyada ka koreeya ku jira ayaa godkii ku dhacaya Joring uu la yaabayaa ninkaas sababtoo ah ka koreeya cunto fiican ayuuna helaa Tirimagaas wuxuu dhahayaa mowduucan waa dabiici maalin kastana uu dhacaa